بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد soo dhawaada saaxiibayaal meel bood joogtaan ciid wanaagsan muuqaalkan waxaan uga jawaabayaa su-aal ay dad badan isoo weydiiyeen oo aheeday sidee baad u duubtaa casharada online-ka ah ee wata animationka iyo transitionka sidaan u duubo hadda ayaan idin tusinayaa si aad idinkuna waxaad haysaan ee xiisaha badan aad bulshada ula wadaagtaan waxaan isticmaalaa Microsoft PowerPoint 2010 iyo firshanada ka dambeeya waad isticmaali kartaa waxaan isticmaalaa anigu 2013 markii aad soo furto PowerPoint-ga marka ugu horeysa waxaa kuu soo baxaya muuqaal sidaan ah waxaad ku dhufataa blank presentation kadibna waxaa kuu soo baxaya page noocan oo kale ah text box sida halkan ku qoran adigu waad iska tiri kartaa press muuska leftiga riix kadibna dhinaca bidix u jiid kadib delete dheh inaad soo gashataan rabaa text boxka press and drag to the left delete kadib page-kan kuu soo baxay colorkiisu waa white cadaanka waad ku dayi kartaa haddii aadan cadaanka rabina waxaad tirahdaa right click format background-iga ku dhufo kadib dhinaca midig color soo fur kadibna colorkii aad adiga rabto dooro page-kan waxba laguma qori karo haddii aan text box la soo gelin inta badan waxaan isticmaalaa anigu 6 taab ee ugu horeysa sida home-ka oo wixii qoraal ku saabsan ah insert-ga wixii aad soo gelinayso sawirro iyo waxaas noocaasa design oo waraaqaha nooca hadda page-ka wax ku qorayso oo ekaanayo transitionska sida slides ay ku kala gudbayaan oo kale animationska qurxiska ah slide show-ga oo duubista ay ku jirto iyo play-gi marka si aad text box u soo gelido insert tab-ka fur kadibna text box ku dhufo kadibna press and drag left mouse-ka riix kadibna jiid kadib wixii aad qori rabtay qor kadib sida welcome all my friends oo kale press and highlight qoraalka dooro qoraalkan waad bedeli kartaa font-iga size-keeda iyo color-keeda waad bedeli kartaa size-keeda si la arki karo kadib box-ka daraagare flaart marka afargees ku noqoto kor u qaad wax yar si aad text box kale intaad soo geli lahayd oo insert text box intaad soo geli lahayd kan un baad ku biyi kartaa waxaad dhigi kartaa control ka qabo kadib marka falaarta markii oo plus raacdo hoos u jiid press and drag mar kaleeto hold control markii falaarta plus raacdo press left mouse and drag down hoos u jiid inta text box rabto kan un baad ku biyi kartaa haddii control ayay ku shaqeynaynin left mouse-kana intaad text box doorato waxaad dhigi kartaa control C control V copy paste kadibna paste-ga drag-garayn kartaa text box-ga waad bedeli kartaa background-giisa format halkay ku qoran tahay tag ee text box ku dooran yahay kadibna shape fill ku dhufo kadibna color-kaad saartaba text box-ka color-ka aad u rabto markaad hesho jooji farta laftirkeeda click and drag waxaad ka bedeli kartaa color-ka waa daarabta guduud baad ka dhigi kartaa marka qoraalkan laftigiisa oo waad bedeli kartaa waxaa rabtaa ku dhex qori text box-ga sida I am Ali Mahdi oo kale wixii aad rabto inaad qorto ayaa text box-kaasi ku dul qoraysaa welcome to a math lesson oo kale waad iska bedeli kartaa mar walba text box-ga color-kiisa format ku dhufo markaad text box soo doorato kadibna shape fill color-kaad baa u rabto markaas ayaad ku dhufanaysaa welcome to a math lesson text box waad bedeli kartaa markaas color-kiisa waad bedeli kartaa waa gartay halkan waxaad doonta ku qor haddii aad number ku qoraydo iyo haddii kale haddaad wax kale ku qorayso waxaa rabtaa ayaa qori kartaa markaas
waa gartay hadda dhinacan leftiga waxaa yahay hal slide baa noo qoran haddaa rabto inaad slide kale soo kordhido homeka fur soo fur kadibna new waad dhihi kartaa noocaan rabto dooro slideka cusubaa soo bax wuxuu noqonaa mid white ah oo color background waxaas aan wadan haddii aad slideka hore slideka nooca aad rabto inaad soo gelidana kan right click dheh cut iska jar kii hore right click dheh duplicate halka ay ku qoran tahay ku dhufo si uu kii hore u koobiyeysmo kadibna ciwaanka pageka waad bedeli kartaa haddii aad wax ka hadlayso tusaalahan fiiriyo algebra aan ka hadlaa kale waad dhihi kartaa kadib qoraaladan text boxka qoraal si u gooniya ku qor sida tusaale oo kale markaa rabto inaad equation qorto waxaad isticmaali kartaa insert kadibna equationka waad isticmaali kartaa haddii aysan sidaas ahayn waxaad isticmaali kartaa latex oo alt equal dheh kadibna tusaale algebra qor oo kale a plus 2a oo kale plus markaa qorayso waa shift equal yes a plus 2a text boxigan waad yaray kartaa press and drag to the left kadibna kanoo kale aad koobiye kartaa control adoo qabanaysid markii falaata plus raacdo drag to the right kadib waxaad qori kartaa markaas si aad alt equal kadibna markaad waxaad qori kartaa equal 3a oo micnaheedu yihiin hal a iyo laba a isku dar waa 3a wixii kalood qori rabto halkan ku qor sida x square oo kale markaad alt equal dhahdo wixii equation aad ka dhigto x square markaa qorayso waxaa dhahdaa shift number 6 taabo kadib 2 kadibna space kadib minus 4 equal 0 waa iska caadi text boxka iska yaree press and drag to the left then copy ama drag what control press left mouse then drag to the right kadib solution qor marka 4 inta ku dar 4 inta 4 ku dar 4 inta waa ka bixi inta 4 ay noqonaysaa kadib qaybta dambe iska tir sida halkan oo kale equal 4 dheh kadibna kan oo kale waxaan rabaa inaan ku qoro markii square root laga saaro kale wixii soo bixi lahaa x equal square root markaa rabto inaad qorto halkan oo kale fiiri rootdan rootkaa rabto kan oo kale square root 4 waxaa dhowta sharaxaysaa sidii loo qori lahaa baan ku tusayaa kadibna waxaad isticmaali kartaa dhihi kartaa text boxkan waad ka bedeli kartaa farta waad ka bedeli kartaa background-ga isla sigun baadna press and push to the left kadibna controlka qabo drag to the right kadibna plus or minus waxaa soo baxay backslashka bm oo plus or minus laga wado square root-ki marka soo geli hadda u baahan tahay design-kaas oo ku jira square root dabcan haddii 4 square root laga saaro 2 unbaa kuu soo baxaysa square root ja uma baahnid waxa kuu dhimi waxay tahay sidii loo sameyn lahaa animation page-ka qoraalka uu ku bilaabanaya waxbaha animate garaynin sababtoo dadka page blank page laguma bilaabo title-ka page-ka iska dhaaf kan ku xiga siduu ku soo geli lahaa dooro text box-ka kadib animation marka animation-ka markaad soo furto waxaad ku dhufataa animation pane-kan si aad animationada aad sameyn dhinaca midig uga aragto kadibna animationada halkan ku qoran kii aad rabto hadba ku baroobay haddii aad kan dhahdo midba waxba uu eg yahay marba mid ku baroobay hataa hadda soo jiid marba mid ku baroobay kii kula qurxoonaada ku daa markaas kii kula qurxoonaada ku daa aad bay u fara badan yihiin kii kula qurxoonaada ku daa waa hagaag kadib waxaa u gudubtaa slide-ka kale title-ka iska daa title-ka waxba ha bedelin qoraalka le center garaynaa bis haye kan dooro animation-ka soo fur markaa kadibna hadba sidii adiga aad rabto ayaad saari kartaa marba mid ku baroobay marba kii ku cajab geliya ku bilow markaas waa garta
kii ku cajab geliya ku bilow hadhowto dabcan cod iyo sharaxaad baad saaree video baa u bedelaysaa taas waa barnaamij kale balse caawa waxaan rabaa inaan ku tusiyo siday u sahlan tahay inaad powerpoint ku qorto cashir kadibna aad ummadda usoo bandhigtaa si fiican u sharxi karta kadib waxaa ii dhiman marka animation qoraalka saaray dabcan animationkan wuxuu kusoo gelayaa mid kastaba mouse keligu kusoo gelayaa amba falaarta down arrow buu kusoo gelayaa oo haddii aad kan u dambeeya fiiriso kale oo falaarta soo furto dhinaca midig fiiri start wuxuu on click unbuu ku bilaabanayaa mid kasta transitionka fiiri waa kan sida slide kusoo geli lahaa marba mid ku baroobay kii kula qurxonaada markaas ku daa kii kula qurxonaada ku daa markaas marba mid ku baroobay kadibna kii kula qurxonaada ku daa waa hagaag sidaas ayay noqonaysaa kadib slide show ku dhufo from beginning ku dhufo waa ka kadib hadda pagekan qoraalo kala ku jira laakiin welcome all my friends bis ayaa muuqata titlekii ilaa titleka ma saarin animation kuwii kale animation sidii kusoo geli aniga xukuma down arrow falaarta hoose taabo waxaan ahay cali mahdi ma arkaysaa welcome to math lesson kadib haddaan slide kala soo gelaya waa ka aljab qoraalada kale waxay ku xaraysan yihiin animationka click bay kusoo gelayaan ama mouse left mouse click dheh amba down arrow taabo say usoo galaan adigoo dabcan hadhowta sharaxaydid sidaas bay ku shaqaynaysaa aad baa u mahadsantihiin waa idin